xaaji xasan xaaji maxamuud oo ka tirsan madaxda sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo xilligan ku sugan ariga dalka ingiriiska ayaa gabay usoo dirisay boqor ismaaciil buurmadow kana kubra xaaji xasan xaaji maxamuud ayaa gabay ay ugu duceynayso boqor ismaaciil buurmadow hawada usoo marisay iyada oo ku sugan dalka ingiriiska. gabay bilaawa berigan yaraa ehelkan badhayay gabay bilaawa berigan yaraa ehelkan badhayay ee weliba aan baafin jiray beri inaanado boqor buurmadow waxaan rabaa baraada taale waxaan baadi doonaa dhulkii bawarka lahaye inadeer waxaan baashiraa kii binixsidaye boholyow xigaalkan u qabay beena ma yahaye bancadaya karamaan ayaan beegsaleeyahaye ogeelaaga badan baan lahaa barqabada eege bisinka iyo maasha allana badhaaxa weeyaane bahayo intii muuse dhalay baan u baahnahaye baydkii alliyo xiis xarago baadilka jecele barihiyo sanaag baan lahaa booqa oo harage beyada ku taal baan lahaa baalka soo guraye hawdinaan ku beeraan rabaa kuna barbartaye balidhiig waxaan geyn lahaa beedka maydidaye isu boodo waxaan doonayaa bahaaxa buu sheege obuug inaan qoraa baan rabaa barashadeeniye adigoo bogsadayo anow beri dhow soo duulay isku beeg ilaaho walaal waa ballaamaynaye isku beeg ilaaho walaal waa ballaamaynaye waa kubra xaaji xasan xaaji maxamuud iyo goli abwaanada afka dhaqanka janta Soomaaliya jaamacadda Gaashansa.